ciyaareen ayaa bilaabi doona qeyb ku soo dhawaada barnaamijka caawa waxaan soo qaadan doonaa xulka Soomaaliya oo barbaro la galay xulka Swatini kulanka hore labiyo eber ayaa lagu badiyay laakiin kulankan way sadkeeyeen waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa Liverpool oo loo sheegay inay iska iibiso xidiga Alexander-Arnold Didier Deschamps oo ku digtay xidiga William Saliba ee Arsenal u ciyaaro kadib markii uu diiday in xulka ka waco waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa xidig muhiim ah oo ka dhaawacmay naadiga maxalliga Man City Arsenal oo ku faracsan waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa Manchester United oo loo sheegay xidig ka caawin karo inay sanadkan Champions League u soo baxaan waxyaabahaas oo dhan ay barnaamijka kusoo qaadan doonaa ee kusoo dhawaada barnaamijka shirkadda meel fogna gaarsiiya waxaan ku hormaraynaa xulka Soomaaliya kulankii ugu horeeyay ee ciyaareen Israel 2025 waxaa isla markaasna ay galeen labiyo eber lagu dhiftay ciyaartii hore hadda laakiin kulankan way sadkeeyeen waxa leeyahay xulka Soomaaliya waxay 2-2 la galeen xulka Swatini laba gool ayaa marka hore ciyaarta halftime eber lagu maray waa la isla soo laabtay markii la soo laabtay xulka Swatini laba gool ay dhaliyeen labadii goolna waxa waaye Soomaaliya ismaysa dhiibin dib ay ka dagaalantay marka daqiiqadii 77 ee Soomaaliya ciyaarta waxay ka dhigtay 2-1 oo markaas waxaan u dhaliyay Cawad wiilka liida Maxamed Cawad ayaa gool ku dhaliyay kaas oo ciyaarta 2-1 ka dhigay laakiin ciyaartu way sii socotay ugu dambeyntii ciyaarta oo markaas 2 daqiiqo wax ka yar ay ka harsantaa goolka barbaraha waxa u dhaliyay Manchester baalkii naadiga xulka Soomaaliya waxa u dhaliyay xidiga Soomaaliyeed oo barbaro markaas u sameeyay waana ciyaaryahan muhiim u ah waxaana la yiraahdaa Axmed Yuusuf kaas oo asaga ciyaarta tuuto ka dhigay sidaas daraadeed marka Soomaaliya 2-2 ay galeen waana kulankii labaad oo ciyaaraan kulan kale inay ciyaari doonaan ee Argentina hadii kulankaas kala badiyaan Soomaaliya rajo ay leedahay inay soo baxdo waarki doona Liverpool halay hore oo Liverpool u ciyaari jiray wuxuu sheegay maadaama Alexander-Arnold laga doonayo inuu markaas Real Madrid u wareego Liverpool waa inay u ogolaataa inay iska fasaxdo xidigaasna lacag badan ay weydiisataa marka wuxuu leeyahay hadii lacala 60 ama 70 milyan loo keeno waa u fiican tahay Steve Nicol ninka la yiraahdo oo 14 sano Liverpool ka u ciyaarayay ay wuxuu leeyahay fursad ay idin tahay Liverpool wadatiin in xidigana aad ku wareejisaan nimanka la yiraahdo Real Madrid hadii lacala 60 ama 70 milyan oo dollar ay siinayaan waa idin fiican tahay ciyaartoy kale ayaan iibsan kartaan lacagna wax ka sameeynaysan marka sidaas daraadeed wuxuu leeyahay isku day xidigan in markaas fasaxdaan tababaraha xulka qaranka ninka lagu magacaabo Didier Deschamps wuxuu leeyahay xidiga Arsenal William Saliba ilaa hadda ku guuldareystay inuu saameyn ku yeesho kulamada xulka qarankiisa maadaama loo yeeray haddana xulkii wax saameyn uu ku yeelan waayo waana mid kamid difaacida dhexe ugu fiican Premier League muhiim ayaan u noqotay leeyahay Mikel Arteta oo muhiim u yahay xidigaane wax badan ayuu ku soo kordhiyay inta uu ciyaaray laakiin Saliba wuxuu ku ceebeysan yahay xulka qarankiisa oo kulamo badan u saftay ilaa 2020 waxa leeyahay wax saameyn weyn ah kuma soo yeelan marka sidaas daraadeed wuxuu leeyahay xidigaani ma ahan xidig oo markaas muhiim u noqon karo oo markaas wax weyn u tiri karo marka uu ku diganayo wuxuu leeyahay xidigan qaranka kuma fiicno marka arki doona Man City baxshaya ku dhacdo leeyahay waxaan ka dhaawacmay xidiga Kanji yiraahdo kaas oo asagana xulka Switzerland lagu ciyaar lahaa ka dhaawacmay in sidaas daraadeed xulka looga saaray inuu dhaawac soo gaar darteed Man City dhibaato ay ku tahay arintaas waxaan leeyahay halis ay gelinaysaa kulanka Arsenal axad soo socdo ee la ciyaari doonaan maadaama xidigaas uu yahay xidig daafacyada ugu muhiimsan oo kamid yahay sidaas daraadeed waxaan leeyahay ma uu ciyaari doono maalinta soo socotay axadda waxaan arki doonaa Manchester United waxa leeyahay xidiga Lautaro Martinez hadii lacala uu soo laabto waxaan leeyahay way u soo gali doontaa inay Champions League kusoo baxaan ama kaalmaha afraad iyo shanaad middood inay kusoo baxaan xidiga hore Manchester United Al Smith la yiraahdo ayuu markaas xulka Ingiriiska u dhashay wuxuu sheegay in xidigaani uu aad muhiim ugu yahay isla markaana wax badan oo ka caawin karo naadiga maxalliga yiraahdo Manchester United hadii lacala uu markaas u soo laabto wax badan ku soo kordhin karo sidoo asagoo aaminsan yahay marka waxaa leeyahay sida rasmiga ah xidigan dhaawacidiisa ayaa badan oo markaas 4 kulan kaliya ayuu ciyaaray markii dhaawac ka soo laabtay isla markiina dhaawac kale ayuu ku laabtay sidaas daraadeed waxaa leeyahay uma badno in xidigan uu ciyaaro badan oo joogto u ciyaaro laakiin hadii lacala 5 kulan ama 6 kulan uu ciyaaro waxa dhici karto in xidigan markaas naadiga ay kor u soo qaado maadaama difaaca si fiican ugu yeero difaacu si fiican inuu uga ciyaaro sidaas daraadeed inuu soo laabto oo markaas dhaawac ka soo qabsado ay dhici karto qofna ma go'aamin doono mustaqbalka waxa leeyahay Erik ten Hag Man United ayaa la ogaaday inaysan hadda wax degdeg ah aysan qabin inay iska buriso Erik ten Hag sidaas waxa qaba dad khubaro kamid ah sportiga waxayna leeyihiin in markaasi la buriyo tababaraha Erik ten Hag qof ogaan karta malaha sababtoo Redcliffe waa ninka hadda sheerka leeyahay naadiga oo markaasi 25% sheerka ku yeeshay lama oga inuu ciirin doono ninkan sababtoo waxa la leeyahay wuxuu doonayaa naadigiisa inuu sare u qaado sida Man City iyo naadiga kale waaweyn ee Premier League ka ciyaaro in Manchester United kaalmaha hore ay soo gashay ayuu doonayaa marka lama ogaan karo qof si rasmi ah urkiis ku jirto ma jirta inuu ninkan burin doono ama inuu iska dayn doono taas waxa la leeyahay marka shaka ay gelinaysaa dadka qaar waxay qabaan in Erik ten Hag uu sii joogi doonin naadiga xil ciyaareedka dambe laga burin doono dadka qaarna waxay leeyihiin lama hubo ninkan in la ciirin doono oo waxa dhici karta inuu iska sii joogo oo markaas aan la ciirin sidaas daraadeed naadiga hadda meel fiican muusan keenin kaanta lixad ay ku hayaan leeyahay wixii iska bedelo oo arki doonaa
ama haddii la celiyo tababarahaasi oo wadanka Holland u dhashay ku arki doona waxaan u wareegaynaa dhanka iyo suuqa waxaa leeyahay Arsenal waxay ku adkeysanaysaa in xidiga badan oo ay doonayso markaas inay weerarka ku xoojiso maadaama xidiga reer Brazil ee Jesus uu ka noqday nin dhaawac badan sidaas daraadeed waxay raadinayaan leeyahay xidiga badan oo markaas ay doonayaan inay ku buuxiyaan afka hore waxaana ka mid ah xidigaasi Victor Osimhen xidiga reer Nigeria oo ciyaara nadiga Napoli waxayna sheegeen lacag $100 milyan inay ku bixin doonaan sidii u soo iibsan lahayn xidigaasi isla markaana uu ku imaan lahaa garoonka maxaa la yiraahdaa Arsenal marka waa arki doona haddii u suura gasho wax badan ayaa markaasi la leeyahay waa suuragal oo xidigaas inay la soo wareegaan way u dhowdahay maadaama ay diiradda Arsenal xidiga saartay la soo iibsan karto xiriirka kubadda cagta ee Yurub ayaa markaasi go'aan ka soo gaaray Manchester United in laga ganaaxo tartamada Yurub sida Champions League iyo Europa League ayaa leeyahay waa war hadda soo dhacay marka Manchester waxa leeyahay waxay isku team yihiin nin uu leeyahay naadiga Nice oo ka ciyaara Faransiiska sidaas daraadeed labadooda kaalmaha hore mid ku soo baxday Champions League aad doonto mid kalena ma ciyaari doonto sidaas daraadeed hadda waxa leeyahay bayaan ay ka soo baxay wararka ayaa sheegay in United loo diiday inay ka soo qayb gasho tartamadan sababta waxay tahay in saamiga oo markaasi Redcliffe ku leeyahay naadiga kaleeto ee markaasi Nice ayaa leeyahay waxayna maalmihii ugu dambeeyay suuqa markaasi ka hadlayeen xiriirka kubadda cagta ee Yurub in Redcliffe aysan u suurageli doonin in labadiis kooxood ay ka wada ciyaaraan maxaa la yiraahdaa tartamada Yurub sida Champions League iyo Europa League taas marka waxay noqon kartaa in kii uu u soo baxo in Champions League oo ciyaari doono kii oo markaas kaalimaha hore ku dhameysto kii ka sii hooseeyana oo san ciyaari doonin haddii labadu soo wada baxaana waxaa la fiirin doonaa xagga dhibcaha iyo xagga kaalimaha sare sida uu kala horeeyaan ayaa la fiirin doonaa marka sidaas daraadeed waxaa leeyahay arrintan culays ay ku noqotay waxaana dadka qaarkood ku farxeen kooxaha Premier League sida Man City oo kale in Manchester United laga reebo Champions League farxad ay u tahay waana wax markaas ay sugayaan Xavi Alonso waxa uu ogolaaday Leno tababaro noqdo Liverpool sidaas daraadeed waxaa laga yaabaa in mar dhow oo xilli ciyaareedka intuu soo dhamaan xilli ciyaareedka markuu dhamaado xitaa inuu soo wareego Anfield isla markaana u saxiixan adiga Liverpool Xavi Alonso Liverpool muddo ayuu ciyaarayay waana xidig qadka dhexe oo markaas aad u jecel yihiin sidaas daraadeed waxaa laga yaabaa inuu soo wareego xilli ciyaareedka dambe wuxuuna ka soo tagay naadiga Leverkusen oo hadda oo markaas tababaro u yahay sidaas daraadeed booska club ay gali doonaa waxaana wararku sheegayaan in markaasi oo wax badan ka bedeli doono maadaama Bayer Leverkusen oo ka soo qaaday kaalimaha hoose haddana kaalimaha hore ee dadka horyaalka hogaaminaya ay ka mid yihiin waxaa leeyahay xidiga kaalinta afraad ee Premier League oo la magacaabay wararku waxay sheegayaan waa isla warkii hore oo Gary Neville wuxuu aaminsan yahay in Martinez uu soo laabto oo kaalinta afraad Manchester United keeni doono waa sida oo markaasi asagu uu sheegay dad badan oo ciyaartoy ayaana arrintaas qabo waan arki doonaa iyadan wixii ka soo kordho aad ku maasantii la socodkeena barnaamijkan Goon Sports Shargareey meel fogna gaarsiiye anaga mar walba xogii uu markaas u baahan halka ay soo gudbin doonaa hadaa lacag loo baahan tahay kooxdaada ama naadigaada ama ciyaartoy adiga taageerto in lagaaga shaqeeyo taariikhdiisa ama waxa ugu baahataba halkan ugula soo wadaag waan ku soo gudbin doonaa ku maasantaa la socodka barnaamijka tan kulteen dambe fi amanillah